بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad walaalaha qiimaha iyo qaayaha badan barnaamijkeena isbuuclaha ahaa ee aad kala socoteen barteena baraheena bulshada ee Baghdad Online Academy mar kale iyo xalaqo kale ku soo dhawaada. maanta xalaqadeeni waxay xiriir la leedahay xalaqadii aan soo qaadanay isbuucii hore ee ku saabsaneed dhiirigeli naftaada. waxaan u maleynayaa qof walba naga mid ah inuu mar walba u baahan yahay dhiirigelin. bani aadanka daciif buu Ilaahay ka abuuray, mar walba waxa weeyaan waxa saameyn ku leh hareerihiisi waxa joogo dhan, qoyskii baa saameyn ku leh, asxaabtii baa saameyn ku leh, warbaahintii baa saameyn ku leh, goobii waxbarashada baa saameyn ku leh. qofka balbo bani aadana saameyntaasi ku imaanayso mararka qaarkood waxay ku abuureysaa moral jab, waxay ku abuureysaa muxuu ahaayay kalsooni darro inuu marka qofkii uu helo dhiirigelin mar walba u baahan yahay. dhiirigelintaasi saan soo sheegnay meesha ugu muhiimsan ee ka imaanayso waxa weeyaan inuu qofka asaga dhiirigeliyo. xalaqadeena hore waxaad ka heli kartaan barteena Baghdad Online Academy ee YouTube-ka. xalaqadan insha Allah ta'ala waxaan kaga hadli doonaa ku kalsoonaw naftaada. xalaqadeena waxay ku kalsoonaw rabbigaaga, xalaqadeena waxay ku saabsan tahay maanta ku kalsoonaw naftaada. walaalka qaaliga ah, walaashayda qaaliga ah, qof walba oo bani aadana awooda ku jirta waxay la mid tahay qofka kale bani aadanka ah. midka horumarka sameeyay, dunida caanka ka noqday, sumcadda iyo ka kasbaday, taariikhda ka tagay, bani aadanka asagoo dhintay ay ku faa'iideen ilaa hadda mirahoodii aan cunayno, iyo midka asagoon dunida waxba ku soo kordhinin ka tagay, Ilaahay wuxuu siiyay awoodo isku mid ah. awooddaasi waxay ku kala duwan yihiin oo kali ah. midna waa isku kalsoonaaday, go'aan uu qaatay, dulqaad uu yeeshay, sabar badan uu muujiyay, meeshuu u socday inuu gaaro ayuu geed gaabani geed dheer u fuulay, kadibna meeshii uu rabay buu gaaray. ma jiro qof adduunyadan intay dhinac walba ugu timaado ay kor u qaado meeshuu raba iska gaarsiinayso ma jiro. tilaabo walba la qaaday caalim dunida caanka ah oo muxuu ahaayay wax badan ku soo kordhiyay oo Thomas Edison oo kala ah, haddii aad aragto dadkii asxaabtii iyo Bukhari oo kale oo dadka muslimiinta ka mid ah ilaa hadda raadkiisa la daba taagan yahay oo kale hadaad aragto, ma ahan wax maalin iyo habeen ku yimid, ma ahan wax meel cidla ka yimid, hiba Ilaahay uu iska siistay habeen maalin ku barakowdi ma ahan. qofkaasi wuxuu sameeyay oo kale ah in uu naftiisa ku kalsoonaaday, tilaaban hore u qaaday. qofka inuu naftiisa ku kalsoonaado waxay qayb weyn ka tahay energy-ga gudihiisa ku jiro inuu fahmo. energy-ga ku jiro ama awoodda ku jirto inuu fahmo ka faa'iideysto ayay qayb weyn ka tahay. qofka bani aadanka ah inuu naftiisa ku kalsoonaado waxay ka imaan kartaa inuu fikirkiisa asaga maamulo, fikirka xunna uu iska saaro, fikirka wanaagsanna uu iska leexiyo. qofka fikirka xun uu gacanta ku dhigay oo asagoo dhanba fikirkiisi uu yahay kan asaga maamulo oo asaga balla maamulo, qofkaasi ma arki karo wuxuu Ilaahay siiyay, ma arki karo fursadaha hortiisa yaallo, ma arki karo jaanisida uu ka faa'iideysan karo. waayo markii horeba asaga ma ahan qofka hogaanka hayay, hogaanka ayaa loo hayay oo naftiisa baa hogaaminaysay. marka inaad fikirkaada maamusho, adiga aad go'aan ka lahaato oo aad kalsooni buuxdo isku qabto waxay qayb weyn ka tahay horumarkaaga. mar walba dib u fiiri maxaa qofka uu u bilaawi lahayd mashruuci inuu bilaawo uu rabay. qofkani waxbarashadii masterka ahayd ee inuu bilaawo qorshihiis ahayd muxuu u bilaawi lahayd. qofkani yoolkii inuu gaaro uu rabay sanadkii hore u qorshaystay muxuu u gaari lahayd. qofkani muxuu qorshe u samaysan lahayd. wuxuu dhan waa wax la xiriira qofka iyo naftiisa iyo ku kalsoonidiisa isla xisaabtankiisa. waxaan shaki ku jirin qof walba bani aadana oo naftiisii isweydiiya su'aal kadibna su'aashaas iskaga jawaaba, waxaan shaki ku jirin inuu meel ka soo baxay. qofka inuu isweydiiyo war aniga maxaan rabaa, qaabkee baan u rabaa, sidee baan ku gaari karaa. hadduu qofka uu isweydiiyo su'aalahaasi saddexda ah, maxaan rabaa, maxaan u rabaa, sidee baan ku gaari karaa, maxaan rabaa, maxaan u rabaa, sideen ku gaari karaa.
hadduu qofka su'aalahaas isweydiiyo waxaa u soo baxayso jawaabo fara badan qofka bani aadanka ahna damaciisi gudaha ku jiro ayuu banaanka la imaanaya qofkan himilaba lahayn damac fara badan uusan ku jirin siduu yahay iskaga qanacsan qofkaas dhiirigelinta uu u baahan yahay inuu hurdada ka soo kaco wayaan meesha aad joogto meel ku anfacaysa ma aha qashan qofkaas ka soo tag rag baa ka soo dhaqaaqay ka soo dhaqaaq gabdhaha ka soo tagay ka soo tag horumar samee naftaada meel gaarsi isku kalsoonaw caqabadaha adiga aad ka sheeganayso boqolkiiba boqol adiga abuuray intooda badan adiga abuuray yaani boqolkiiba boqol ayaa la dhihi karaa adiga abuuray inta badan sababtoo ah qofka bani aadanka problem walbo inuu xal u raadiyo heli karaa inaad mashruuc bilowdo cabsidaad ka cabsanayso inaad qaldanto oo khalad aad ku dhacdo inaan qaladkaas ku dhacan ka cabsanaya mashruucan waa bilaawi lahaa ما waxaad ka cabsanaysaaba fashil inuu yimaado mashruuc haduu fashilmo aniga waa ku ceebowaya sumcadayda hoos u dhacayso ayaa meesha ku taagan laakiin ma isweydiisay qof aan qaldamin wax ma saxo ma isweydiisay qof aan fashilmin ma guuleysto su'aasha muhiimka oo meesha ku jirta weeyaan isku kalsoonaw naftaada aamin awood ilaahay uu ku sii aamin adiga dadka kale inaadan ka kaliidanin adiga isku qanci marka hore kan horumarka gaaray adiga isku mid ma tihiin waxyaabaha qofka bani aadanku qofka kale ku dhaafayeen waxa weeyaan inuu asaga go'aansado inuu tilaabo qaado waxa laga yaabaa in dad badan oo dhalinyaro amaanta ay leeyihiin wax baan baran lahay hadii aan dhaqaale heli lahaa waxa laga yaabaa qaar inay leeyihiin aniga waxbarashadii waa bilaaway waa isku day laakiin duruuf dhaqaale ayaan ka wadi waayay laakiin waxaan shaki ku jirin qofka haduu albaab garaaco oo uu ka soo xirmo Allah subhanahu wa ta'ala boqolaal albaab kale u furaya halkii albaab ilaahay uu ka soo xiray ha taagnaanine adiga albaabada kale ilaahay furay arag fursadaha hareeraha ka jira raadi nin la raadi Dr. Maxamed Maymuun ayaa wuxuu ka sheekeynayay nin shaqadoon aha oo wax bartay oo rabo inuu company u shaqeeyo companygu inuu u shaqeeyo rabo company asaga oo kale qof uu ka shaqeyn kara maba ahaba khibrada loo baahan yahay aqoonta loo baahan yahay iyo muxuu ahay dadka loo baahan yahay xataa company waa company Faransiis ah dunida sumcad kule ninka shaqada rabo nin Jazaa'ir u dhashay oo wadankan Carabta ah muxuu ahaayay aqoontiisa xataa aysan gaarsiisneen heerka la rabay jaamacadu ka soo baxay aysan ahayn jaamacad iyaga ay sumcad agtooda kale ay aqbalayaan haddana ninkaasi wuxuu yiri konton jeer ما عفوا بقول جير أيو نكاسي وحو قري إيميل بقدر كمبنيجي وقعد سنة إن لسيو جانس إيميلو قراء لو مسو جوابه إيميل كلو قراء إيميل كيا لو مسو جوابه كما أقبل كرنا لدها إيميل كلو قراء ماكو إيميل هذا كدالي إلا بقول إيميلو قري ما لين دم بحيل وأنا حفيز كود التجاب أنا قلفت إذا بتجيب حفيز كمركو التجيبه وحكوا أركينين معلن كيس أها وماشي جوجا ماشي اسكو سلامين اسكو وريستين adigana meesha maxaa ku keenay halkaan shaqo ka raba niyo kuma aqbalayaan meeshan kuma yeelayaan dadkan qaabkad ku socoto kuma shaqeeyaan niyo iska daa niyo maamulka ila kulansi aniga meeshan dalabaan u soo gudbistay dalab labaadaan soo gudbistay 100 email baan u soo diray welina waxaan rabaa inaan arko ma qursanin igu caawi inaan arko madaxda meeshan ninkii madaxdu ku caawiyay wuxuu yiri ninkan iyo wuxuu yahay tafaasiishiis intaan gelin waxa igu muhiimsan ninkan wuxuu igu yiri company-gan waxa uu soo diray 100 email ayaan u soo diray oo codsiyo aan kaga codsanayo shaqo ah warniyo waxas ma jiraan ninkii wuu yaabay wuxuu yiri macquul ma ahan say ku dhici kartaa waxa soo email markuu soo diray muxuu la jeedaa yaani qofkan hal email in uu soo diro loo jawaabo la yiraahdo kuma siin karna shaqo waa niijabaya waa iska soconaya ninkan soo taagan wuxuu yiri 100 iska dhaafe hadii emailadiis ay ninkan content gaaraan waa aqbalayna yaani wuxuu leeyahay yahay ninkan iyo go'aankiisa iyo kalsoonidu isku qaba iyo suu ugu adag yahay hadafkiisa inuu gaaro emailada marka la soo tiriyay la soo bilaabay kontumay email la maraya ninkii company iska wuxuu yiri go'aan baan qaatay ninkan shaqada waa siiyay saacadan wax ka bilaawdana meeshan uu shaqaale ka yahay waa mahadsantiin muxuu ku gaaray وسكو كالسونا إنه صندت كماشة كشقينا كل ذي نبو آمن سنة كالسوني دي سواحي كل ريحيسي إنه سنكت تنازلين هدف كيسة
tilaabada uu qaadayna tilaabo uu ku daro maanta wuxuu sameeyay biri uu ku celiyo marka albaabka ka soo xirmay oo kaliya ku mashquuline albaabada kale faraha badan ee furan runtii inaad fiiriso muhiim way qofka haduu isku kalsoon yahay dulqaad iyo sabr uu yeelanaya hadafkiis inuu gaaro meel geed gaaban geed dheer u fuulaya aniga waxaan aqaana gabdho yar yar oo 12 jir ah oo runtii shaqeeyo waxay shaqeeyaan gabdhahaasi 15 saacadood oo noloshooda kamid ay shaqeeyaan waxa laga yaabaa inay maalintii oo dhan ay ka seexdaan 3 saacadood iyo 4 saacadood oo kaliya ah shaqadaas iyo waqtigaas ay qabanayaan iyo muxuu ahaa juhdigaas ay bixinayaan iyagoo ku shaqeeyo adana wax barashay aadaan habeenkii 10 saaco galabnimo ayay shaqo soo galaan 1 saaco subaxnimo shaqadaas ka baxaan 1 saac barna iskuulka ku xaroodaan kadibna 6 saac ay ka soo baxaan 6 saac ilaa 9 saac 6 saac ilaa iyo intay guriga ka tagaan haddana 9 saac guriga bay ka soo dhaqaaqaan yani waxa laga yaabaa markay guriga tagaan ilaa 2 saacadood seexdaan waa gabdho yar yar laakiin maxay rabaan hadaf ay leeyihiin waxay wax bartaan ka go'an dhaqaalihii idanta duruufta waxay ku qasabtay inay shaqeystaan oo habeen ay shaqeeyaan oo ay muxuu ahay nasiinadoodi iyo raaxadoodi iyo waalidkoodi ila joogitaankii ay ka tanaasulaan si ay mustaqbalkooda u dhisaan bal ila fiiri gabdhahaas yar yarka ah maanta shaqeysanaya shaqadaasi waxa weeyaan waxaad dhihi kartay kuwan shaqo ma awoodaan inay wax bartaan ay ahayd laakiin ciday u fadhiyaan ma muuqato mustaqbalkooda iyaga laga rabaa inay ka shaqeystaan marka inay qoyskoodii ay waayaan maalintoo dhan ay 2 saacadood ka arkaan usbuuciyo dhanba hal maalin bas ay nasiino ka leeyihiin waxa ka keenay waxa weeyaan meel bay u socdaan kalsooni bay isku qabaan inay wax baran karaan bay aaminsan yihiin iyagoo duruuf iyo dhaqaale muxuu ahay iyo xaalad adag ay jirto in horumar la gaari karo bay aaminsan yihiin qof walba anaga midaan waxaan aaminsanahay nooc walba oo uu doonayo horumar inuu qaab badan ku gaari karo uu leeyahay inaan isku kalsoonaano oo nafteena aan aamino aad ay muhiim u tahay waxa kale aad muhiim ah qofka rabo inuu naftiisa kalsoonida uu ku qabo uu xoojiyo inuu taariikhdiisa dib u raaco war aniga horta qof weligii soo guuleystay ma ahay aniga markaan yaraa waxa weeyaan ciyaalka aan la ciyaaro caruurta aan wada ciyaarno waxaan kamid ahaa dadka ciyaarta aad ugu fiican sumcada kule markaan dugsiga dhiganaynay waxaan kamid ahaa ardada macalinka uu jeclaa markaan iskuulka dhiganaynay waxaan ahaa muxuu ahay kaaba galaas ayaan ahaa markaan meeshaas joogay waxaan ahaa ardada muxuu ahay jaamacada sumcada sharafta kule ee maamulka ay qadarinta u hayaan ahaa markaan muxuu ahay dugsiga sare dhiganayay aniga ayaa qarashka iska bixinayay meel guri baan wax ka dhigay home teaching ka sameeyay markaan jaamacada dhiganayay shaqana waa waday dhinaca kale waa shaqeynay yaani guulo fara badan oo adiga aad noloshaada ku soo kordhisay baa jiroon shaki ku jirin guulahaas inta dib u raacdo liis gare hortaada ku dhajiso maalin walbana daawo waxay ku noqonayaan dhiig cusub waxay ku noqonayaan shidaal way ku jaajgareynayaan kadibna noloshaadi iyo mustaqbalkaadi inaad dhisi kartaa ku soo bixi doonto xalaqadeena inaan soo kooban aad ugu qasbanahay insha Allah ta'ala duu ilaahay raado barnaamijkeena dhiirigelin naftaada wuu noo socon doonaa xalaqo kale ayaan ka diyaarin doonaa xalaqadeena intaas ayaan ku soo koobaya intaan ku kulmi doono xalaqo kale intaas ayaan ku soo gabagabeynaa ma hasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh